Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan jeclaystay inaan la wadaago qiso yar. Nin dhalinyaro ahaa ayaa xabsi ku jiray waxaan sugayay xukunkii dilka toogashada ahaa. Qolooyin interview ka qaadayay ayaa weydiiyay su'aal ah maxaa sidan kaa dhigay. Wuxuu ka sheekeeyay noloshiisii. Waxaan lahaa aabbo nolol aad u adag nagu soo koriyay, na dili jiray, wax uu soo xado nagu korin jiray. Markaan soo weynaaday anigana waxaan bilaabay inaan wax xado. Maalmaha ka mid ah anoo wax xaday ayaa la qabtay. Waxaan la geeyay dhalinyarada xabsiga lagu xiro. Xabsiga dhexdiisa ayaa dagaal ka dhacay. Anoo isdifaacay ayaan duuray la baxay. Markaas laba qofood dilay. Markaasuu yiri adigoo og qoladii su'aal ku celiyay idinkoo og sidan aan noqday iyo noloshii aan ku soo koray oo hadda idinkaga sheekeeyay sidee ii weydiin kartiin noloshan iyo sidan maxaad u dooratay adiga. Qolada interview ka qaadaysay ayaa baaritaan ay sameeyeen waxay ogaadeen ninkan xabsiga ku jira inuu leeyahay wiil ay walaalo yihiin. Ninkii raadiyeen oo magaalada kula kulmeen ninkan aad loo ixtiraamo waaye. Ninkan xabsiga ku jira ninka walaalkiis ah wuxuu leeyahay 4 carruur ah. Wuxuu ku jira golaha deegaanka waa in aad looga qadariyo meesha uu degan yahay iyo deegaankiisa. Waxay ku yiraahdeen su'aashii ay weydiiyeen walaalkiisa ayay weydiiyeen oo ay ku dhaheen maxaa sidan kaa dhigay. Wuxuu ku yiri waxaa suuragal inaadan ogeyn noloshii aan ku soo koray iyo sida ay ahayd. Wuxuu dib ugu sheekeeyay noloshii uu ku soo koray. Wuxuu yiri waxaan lahaa aabbo idila dhibaateeya wax uu soo xado ayaan ku nooleen uu nagu korin jiray iyo wax xoolaha xaraan ah. Waxaan leeyahay walaal asagana dariiqaas qaas daran qaaday. Adigoo og su'aashan noloshaydii hore hadda aan kaaga sheekeeyay sidee ii weydiin kartaa su'aal ah maxaa sidan kaa dhigay. Maxaa yeelay waxaan ogahay dariiqa kale iyo meesha uu aadayo iyo cawaaqibka ka dhalanaya ugu dambeysa iyo meesha uu u baxayaan ogahay. Saas daraadeed ayaan u doortay noloshayda inaan hagaajisto oo noloshayda aan qurxisto. Markaan eegno labadan dhalinyarada ah ninna wuxuu ku soo koray nolol aad isku nolol ayay ku soo koreen labada nin. Ninna wuxuu qaaday dariiqa toosan oo noloshiisa hagaajistay. Ninna dariiqa qaab darnaa ee aabiis ayuu qaaday. Taasi waxay ku cadeynaysaa ayagoo haddana hal meel ku soo wada koray qaab isku mid ah loo soo koriyay ayaa haddana kala duwan yihiin. Bulshada ay ku soo dhex koreen waa islaamkii bulsho. Haddana difference weyn ayaa u dhexeeya labadan walaalaha markaan fiirino. Taasi waxay ku cadeynaysaa haddii aad doonaysid sidaad doonto u soo kor noloshaad doonto ku soo kor nolol kasta qaab daran tahay kasta dad ku soo kortid waxay ku cadeynaysaa in aad noloshaada adiga aad horumarsan kartid ama adiga aad dib isku dhigi kartid. noloshaada haddaad hagaajistid ku hagaagaysaa. noloshaada haddaad qaybta qaabta daran aad ka qaadidna noloshaada weligaa kuma hagaagayso. Marka dhalinyarada waxaa mar walba ku waaninayaa in noloshooda ayaga ay darawal ka yihiin ayagu inay hagaajisan karaan hagaajistana noloshooda ilaahayna la garab galo insha Allah. Assalaamu calaykum.